طبعا si guud mataqaana labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa hawshaas mataqaana wax badan talo way ka jeediyeen xukuumadana way ku hawshan tahay oo guddiga adeega garsoorka hadii mataqaana laga hadlayo waa si golaha shacabka ay hore mataqaana wasiirka waqti u siiyeen in lagu soo dhiso طبعا waardina wasaaradda ay hawsha wado nidaamka cadaaladda ee wadanka oo dhan mataqaana habacsanaan baahsan ay ka jirtaa madaxweynaha jamhuuriyadda hore u ballan qaaday inkastoo uu 3 bilood uu hore u ballan qaaday ay hadda fashilantay waxaan rajaynaynaa mataqaana habacsanaanta dhanka waaxda cadaaladda saddexda hay-adood ee ma aragtay ugu waaweyn dalka midda ugu liidata ay noqotay marka waan dareemaynaa shacabka Soomaaliyeed inay dib ku qabaan waxaan rajaynaynaa baarlamaanka Soomaaliya inuu arrinkaas mataqaana cadaadis ugu sameeyo sidii loo soo dhisi lahaa gudaha adeeg garsoorka ayna u shaqayn lahaayeen hay-adaha cadaaladda dalka insha Allah caqabada kood gurban waxay tahay ma dhisnaba garsoorkii ayaan dhisnayn oo ah madaxdii mataqaana sida aad la socoto sida golaha wasiirada iyo sida baarlamaanka ayaa la rabaa in uu mataqaana garsoorkan u dhismo golaha adeeg garsoorka oo ay dhismaan oo go'aanada mataqaana gaari lahaa ma aragtay dhanka cadaaladda ah maxkamadii mataqaana dastuuriga ma dhisna marka caqabada hortaagan waxay tahay hadii aanay jirin tusaale ka soo qaad golaha wasiirada yaa fulinaya siyaasadka iyo shuruucda iyo in mataqaana yaa howlfuliye noqon lahaa ma jireen way saasay ka dhigan tahay marka golihii wasiirada ee mataqaana bahda cadaaladda ayaan dhisnay kaas ayaan rajaynaynaa insha Allah in dhaqso loo dhiso